So, in this video, I'm going to share with you the top 3 movies that you need to watch to elevate or improve your English. I'm here to help you to improve your English and your self-confidence. waxaan ahay Ibrahim Adam kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. sidaad hore ula socoteenba waxaan muuqaalka hore idinkugula wadaagay meelaha aad ma aragtay ka daawan karto aflaamta si aad luqadaada ugu horumariso. markii ma aragtay aflaamta aad daawanayso oo kale filmada qaar ayaa ma aragtay aad kaaga caawinayo in aad luqadaada horumariso. waxa jiro marka maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago 3 film oo ay tahay inaad daawato haddii aad rabtid inaad luqadaada horumariso. waxaan isleeyahayna waa 3 aflaam ee ma aragtay ugu wanaagsan aad daawan karto si aad luqadaada u horumariso. aniga waxaan aad u jeclahay shakhsi kasto idinkeena kamid ah inuu luqadiisa horumariyo oo Englishkiisa ma aragtay perfect oo noqdo. waxaan hore idinkugula wadaagi jiray journalist fara badan oo ma aragtay aad luqada ama aad daawan karto yani qaabka wax u soo gudbiyaan si aad luqadaada u horumariso. marka waxyaalaha aad ka faa'iideyso waxaa kamid ah marka inaad filmada daawato ama inaad journalistkaas daawato waxyaalaha aad ka faa'iideyso waxaa kamid ah in يعني dhagahaaga iyo maskaxdaada ay la qabsato qaab dhawaaqista ereyada iyo sidoo kale luqadda. sidoo kale waxaad ka faa'iideysaa in aad yeelato yani faham guud oo luqadda ah iyo in aad ma aragtay sida ay ayaga u hadlayaan ama wax u pronounce gareynayaan inaad u pronounce gareyso ama aad ugu hadasho. maanta marka waxaan jeclaystay inaan 3dan aflaam ama 3dan film idinla wadaago. midka ugu horeeya waxaa la yiraahdaa about time halkan ayaan soo dhigi doonaa qaabka uu filimka yahay iyo qaabka ma aragtay uu u yaalo iyo magaciisaba. No one can ever prepare you for what happens when you have a child. When you see the baby in your arms and you know that it's your job now. No one can prepare you for the love and the fear. Eating in or taking away today? Take away, please. Yeah? No problem. Lovely, that's 424 then, please, sir. Thank you kindly. Lovely. And just your change that? Great. 6-foot stage? Great. Thank you. Hello there. Are you eating in or taking away? Guilty. And that is the verdict of you all? Yes. Thank you. You may be seated. Thank God. Let the defendant be discharged. Be upstanding in court. midka labaad oo aan rabo marka inaan idinla wadaago ayaa wuxuu yahay the social network. asagana sidan ayuu u yaalaa. filmka saddexaad oo aad daawan karto oo aan doonayo marka inaan idinla wadaago ayaa wuxuu yahay a beautiful mind. sidoo kale asagana halkan ayaan soo dhigi doonaa. 480301 91 2635 Prairie Portage, Minnesota. These are latitudes and longitudes. There are at least 10 others. They appear to be routing orders across the border into the U.S. Captain Rogers will escort you to the unrestricted area, Doctor. Thank you. Dr. Nash, follow me, please. waxaan rajeynayaa maaragtay filmadaas inaad ka faa'iideysan doontaan oo maaragtay aad daawan doontaan si aad luqadiina aad ugu horumarisaan. guys yani mar kasta waxaan ku soo celceliyaa muhiimadda ay leedahay Englishka yani muhiimadda uu leeyahay. and of course dad badan oo isbedel sameeyay oo maaragtay luqadii fahmay oo maaragtay ku hadli karo ayaa jiraan laakiin haddana sidaas ay tahay dad waxaa jiro aysan u bilaabneen. waxyaalo badan ayaan rabaa inaan idinla wadaago maalmaha soo socdo muuqaalo fara badan ayaana soo dhigi doonaa insha Allah. sidoo kale waxaa jiro group maaragtay community oo maaragtay oo ay ku jiraan dad fara badan halkaas oo aan bilownay inaan ku soo gudbino ereyo cusub yani ereyo ka caawin doono in luqadaada aad horumariso. yani ereyada wali waxaan soo gudbinaa erey kasta iskama soo gudbino laakiin ereyada aan soo gudbin doono ama groupkaas aan ku soo gudbin doono wuxuu noqon doonaan ereyo daily life yani daily life use ka ereyada macnaha sida maalinlaha ay dadka u isticmaalaan. linkiga groupka waxaan soo dhigi doonaa qaybta description-ka. ku soo beer waa group WhatsApp. haddii aad channelka ku cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto ama ugu yaraan hal qof asxaabtaada kamid ah aad la wadaagto. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. assalaamu calaykum.